أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ku jirnaa maanta casharkii labaad ee aynu kaga hadlanay barashada macdanta siiba qaybaha la yiraahdo ooriska siiba dahabka iyo qaabka ay ugu jiraan Soomaaliland hadii la yiraahdo si looga faa'iideysto mustaqbalka si yaro kooban oo la fahmi karayo oo ardayga wax bartay heer jaamacadeed ku jira marka maanta waxaan taagnayn inaynu balada ka warano noocyada dahabka dhinaca Houston Rock ama aan raahdo dhagaxaanta dahabka ah meelaha laga helo noocyada ay kala yihiin inagoo ka eegana dhinaca xididka iyo dhinaca dhagaxa qaada ee laga heli karayo dahabka xididka qaadaya inta cariiq ee awsi kala baxaan waxyaalaha soo dhan ayaan doonayaa ka sharaxo marka noocyada oo kala baxaan ayaan leenahay waxa weeyaan 10 nooc oo kala duwan oo macnaheedu tahay 10 goobood iyo 10 dhagax iyo 10 cariiq oo kala duwan ayaa laga heli karayaa dahabka qofku uu raadinayo ee uu ka raadinayo buura ama dooxyada horena waxaanu soo sheegnay in dahabku uu yahay shayga ugu wasakhda badan oo una mar walbana ka maarmin biyo ayaan hore u sheegnay marka laga reebo laba nooc labadan noocna iyagana qaybaha depositka ayaynu ku sheegi doonaa oo quartzite-kii aynu hore u soo sheegnay oo inuu dhagaxaasi ku naban yahay uu yahay native gold waxaanu nahno ama nugget aynu nahno iyo ma inuu yahay mid kale oo asaar hara oo samaysa oo dabadeedna saasi deposit ka noqday